channel ka daawanaysa wuxuu media hadii aad nagu cusubtahay fadlan lagu soo diir hadii aad hore noola joogtana muuqaalka noo saar waad ku mahadsantihiin barnaamijkeena caawa dirayna Maria Abshir boqorada steelka iyo boqorkeeda Haykal Maxamed habeenkii xalay ahayd Muqdisho waxay u ahayd habeen uga duwan habeenada kale marka la eego xafladii ka dhici jiray xalayto Muqdisho waxay u shidnayd xidigaha boqorada steelka iyo Mr. Haykal xafladaasi oo looga kala yimiday dhammaan daafaha dunida haddii ay noqoto xagga Ameerika dalka gudihiisa xafladaasi oo loo soo agaasimay si heer aad iyo aad u sareysa taasi oo ay ka heeseen fanaaniin aad u tiro badan oo ay ka qaadeen heese kala duwan oo loo qaadayay labadaas lamaane run ahaantii lamaanahaasi aanu ugu magac darnay lamaanaha sanadka awlaad caashaq lagu dhalay udgoonkaad ku garataa Haykal oo isagu kaba soo jeeda reerkii Haykal oo isagu kaba soo jeeda astaantii jacaylka cilmi boodhari berbera wacdaraha muuqaaladii xafladii xalayta Muqdisho ka dhacday oo aan run ahaantii loo kala harin hadday noqoto fanaaniin hadday noqoto dhalinyaro TikTok caan ka ah social media bulshada qaybaheeda kala duwan looma kala harin run ahaantii xafladaas waxaad halkan ka arki kartaa sida loo soo agaasimay ee loo soo diyaariyay xafladaas taasi oo la iskaga kala yimiday daafaha dunida hadday noqoto dalka dhexdiisa iyo hadday noqoto dibadda xataa waxa laga yimiday Ameerika fanaaniin aad u tiro badan looma kala harin boqorka iyo boqorada Haykal Maxamed iyo Maria Abshir anagu waxaanu leenahay wada jira wada noolaada sidaad quruxda badan tihiin sida xiriirkiina uu quruxda badan yahay markastana wada noolaada fanaaniinta wacdaraha ka dhigay Shaadiya Sharaf Xamdi Bilan Ismaaciil Arka looma kala harin ugu habay macaan luufa caawa way kacsantahay wax ma laga qaban karo waa aroosad kali ee arooskeeda intaas milyan ka soo qayb galeen fanaaniin caan Mareykan ayaa ka imaadeen caawa waa raaxaysanay xafladani sida heerka sareysa loo soo agaasimay waa la iskaga dambeyn doonaa oo waxa ku xigi doonta mid ka dhici doonta caasimadda Hargeysa taasi oo run ahaantii sida qurux badan loo abaabuli doono Haykal oo isagu dhinaciisa ka diyaar garoobaya isagii asxaabtiisa reer Hargeysa ayaa waxay soo bandhigi doonaan xaflad aan inaba caadi ahayn oo run ahaantii taariikhda geli doonta xafladii xalayta Muqdisho ka dhacday waxaa loo soo agaasimay si aad iyo aad u heer sareysa waxaad ka garan karaysaa muuqaalada dadka xalay iskugu yimiday oo waliba meel qaada loo waayay boqolaal kun oo qof ka kor u dhaafay oo nooc walba leh dadkii ugu caansanaa baraha bulshada
fanaaniintii waxaan ku ay nooc dhalinyarada TikTok-ga looma kala harin.